wiilka caluula iyo bayle iyo bandarbeyle jooga halka inuu ka soo kaco wiilka jooga qarri joqood iyo jigjiga iyo ka shishay iyo maxaan ku raada tiyaglow halka inuu ka soo lugaya loo baahan yahay fariinteedu waxa weeye walaal madaxweyne iyo dawladda Soomaaliya nation building baan u baahanahay Soomaaliya idinkana waxa idinkaga tagayaa rahba waxa la yiri biyo ka waran biyo wuxuu yiri biyo hadii wax tar leeyihiin boodadooda ka fiirey wax baruura ma igu aragtaan war qabyaalad hadii wax tar leedahay waka dhulkeenni maalinba qayb la qaadanayo qabyaalad hadii wax tar leedahay saan u go'go'nay ka fiiriya midnimo xuma hadii wax tar leedahay saan u ognaay ka fiiriya ma isku ognaay Soomaalinimo wadaniyad islaamnimo dalkeenna inaan difaacno diyaar ma u nahay ma wada soconaa qabyaalada maxaa tiraahdeen تفرارق ما تراهدين كارتاق ما تراهدين آد يا آد بأما سنتهين ورمانا فرينتي ذو قدام بسوحة وياه ميركو هيدين سو النقطة سومالك لكم قاضيسان السلام عليكم شيخ محمد ولاد التامكو إلى ترى رحين ولاد مركب ميكروفون لودي بمجوجنيو قال هذا حتى وحيد هم باستر مايك ولا كالإلالية يا كنيسة marka Sheikh Maxamed Qaarba ya Sheikh Maxamed Mursal runtii waa aad buu taamkiisa u qiimeeyay wana soo jaray kana raali hada hadan wuxuu ku soo dhaweynaa Sheikh Maxamed Muqtaar bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wax allaale wixii la sheegi lahaa culimada iyo mashaayikhda iga horeysay baa noo sheegay kaliya waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aan ku adkaynayaa midnimo ogaada midnimadu waa cibaado weeyaan midnimadu waa awood weeye midnimadu waa cizo iyo sharaf iyo karaamo weeye maanta ummadda Soomaaliyeed haddii ay midnimo ka muuqnaan lahayd Abiy Ahmed iyo Itoobiya iyo cadu ma soo haweysteen waxaan idin dardaarmayaa inaad ogaataan marka aynu midowno waa marka aynu wax qabsan karno maanta khudbadii jimcada waxaan ka akhrinayay masaajidka Kaarmel waxaan yiri dad yahoon balaayo afka laga ma dhowro haddii maanta gobolada Soomaaliya mid ka mid ah Puntland Jubbaland Hirshabelle Banaadir Shaydaanland haddii wax yar uu ka dhici lahaa Minnesota way gariiri lahayd waa la wada istaagi lahaa tolla ayay baa ka dhici lahayd maxaa dantii guud maxaa dalkeenni maxaa dadkeenni maxaa diinteenni dayacay ma waxa aynu ku kaaftoonnay ma waxa inugu filaaday qabiil walaalayaalow ma ogtihiin inta luqadooda Itoobiya laga hadlo inta diin ee wax weyn meesha taala diin ma wadaagaan oo qabiil ma wadaagaan oo dhaqan ma wadaagaan indhahayga waxaan ku soo arkay 1993 Itoobiyada kormaran tagay kuwa qaaqaawan oo sidoo Ilaahay u abuuray ah oo gabdhahooda halka googaradda ilaa inta madaxu ay wada qaawan yihiin oo nooc ay u ogyihiin alla yaabayso kuwa qaaqaawan oo saan xidhan haddana waxay aaminsan yihiin midnimo waxay aaminsan yihiin Itoobiyaannimo innagana waxaan aaminsanahay reer bani fulaan iska ilaali hebel iska ilaali hebel baacadu kuwa ma waxa macquul ah gaal kacayo in border loo sameeyo illa iraada halkaan waxa weyn ma taqaanaa dawlad ba ka dhisan wadada dhankeeda kale dawlad baa ka dhisan waxa macquul ah in la yiraahdo khaatumo iyo Puntland baa kala qaybisan oo one family ay degaan waxa macquul ah wajaalo halka markaad istaagteen in la dhawa dawlad baad gashay halkana dawlad waxa halka ayna geeyay faaruq waa khilaaf waa isnacayb ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إخواني أمد الصومال ميل والبقي شوكتو كينيا شوكا إثيوبيا مانتا صومالي شوكا كوقوي شوكا كبري شوكا ككونفور شوكا مانتا الكينا بدين يدل كينا وواجب شرعي إلا الدفاع. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء آد بيوم هتسنيهين وقت جوي نص وكوبن صوبه هذه آد ما شاء الله. waxaan helayaa text message aad u fara badan qof walba oo loo sheegay inuu hadlayo wuu hadli doonaa laakiin barnaamijka sidaan ugu talagalnay oo loo kala horeysiinayay uu ku soconaya insha Allah waxa ka bedeli mayno markaad microphone-ka hayso pressure badan baa na fuula oo ma aragtay waa idinkana arkaya marka hanoola dulqaato qof walba la dhahay wuu hadlaya insha Allah. Presentation-ka intuu walaal diyaarsanayo engineer-ka waxaynu gelinaynaa heesta calanka ama heesta qaranka nibas uu yaqaano music ma laha marka culimada iyo sandidin insha Allah qoliyaha control-ka waxaan jecelnahay inay heesta qaranka noogu tuuraan. ما شاء الله هلا سعبيو هلا فريستو بعد ما تنتهين ودنيين باتهين ما شاء الله تسيدوا الشيخ عبد الرحمن بشير الشاقي انتونا انجينير كبلابين بريسنتيشن كا هلا امس ان شاء الله هلا امسو قوليها كنترول كا وحان جعلان لها بريسنتيشن كا اناي سكرين كا كسو سيدايان